dhulka aad ka tagaysid dhaxalkiisa adaa leh jooji tahriibka mulkiilaan ahaa maantana cayr baan sugaa jooji tahriibka xabsiyada adduunkan ku xayranahe walal jooji tahriibka abaa joojiya tahriibka dabeelaha iyo duufaanadana dilaya waa dulmiyaan isu keenay walaalayaal inuu joojino tahriibka boqolaal qof baa baddaas ku dhintee baladan ha soo aadin walaal jooji tahriibka qoyskii la qalaa qalqalkan nagu beere abaa jooji tahriibka abooba jooji tahriibka walaalayaal joojiya tahriibka daaraha qorxoon yaysan ku dagine jooji tahriibka walaal hanti intaad raadinayso haaligi naftaada jooji tahriibka lama huraan waa cawska jilaale walaalayaal jooji tahriibta wadankeena aan imaansano macdanta aan la soo baxno jooji tahriibta beeragan belidkan badoogan yanin baahan alinkii aada eriti aadanta enroorahaytan magaalooyinkii taariikhiga hay zaylaci ka mid hayti beerogii aaran ka hayana shabeellada hoos kiyaalan ceeladii shidaalka la burqadahay gedi kiyaalan nin baahan alinkii aada eriti aadanta enroorahaytan tafadal walisin kala taliyay intii isin tahriibka roojida hantideediba guurto ma hayee jooji tahriibka qureeshtii gabdhaheena nin walba iska qaatay jooji tahriibka walaal xereenka qaxootiga bay xabsi nooga dhigeen fadlan jooji tahriibka qarashkaad ku qasaasisid naftaada wax ku qabso jooji tahriibka jaamici baan ku ahaa wadankayga intana jaahil baan ku ahay jooji tahriibka waa iga tale jooji tahriibka walaal galliyahay tahriibtiyo ku taamaya dibadee tacabkii dadkoodiyo toodiga lumiyo usijuwe jooji tahriibka daldalaalkaad aragtaan dhalinyara dhisatay dhisa dhulkaaga jooji tahriibka tiradeenoo kori weydo tahriibtaa noo lahaaye jooji tahriibta walaalayaal lafana garnina soo caayimada Yurub waa umaleena balaan ka qabto halo brother kii warqaday fiicane baash miya warniyo waa wali kay ma joogta haani wali meesha iskuulkii iska dhigtaa inaad taariibtaa maqalay dadka qurbaha ku dhamaada ku mileynaaye warniyo saacadooda Facebook ku arkayeen iyo sawirada soo galiya ma aragtay meesha taagna qurxdeeda joogeeda niyo sawirada aad u qurux badan laakiin wadanaada leh ma dareen ku joogay saasaan ugu diiday inaan taariib aniga wadaniyo deeqo xirowata dad badan baan brother kii dhalinyarada tahay mustaqbala ku faayo brother kii wadada soo mar lacag daana ku soo diraayo soo taariib wax barasho wista oo masuulka u leena brother halkaas ana ay dhimanayna iska dhameysto jaamacada wadankayga ka dhigtaan jeclaanay mar wadan shisheeye brother بقديات هاينيو فأنا قاعد واحد ما أنا لعبت أتوك استباشر لا هذا الشيء مركزيو فعلوا بقى أنا بجاشنا لو بقى يعني وحبرشة أفريقيا مثلا نيو من الملوك بجوكتا نيو brother أنت صور فاضي لا وبدأ أنكر فاضي لا بوجي أنكر صارنا أنا ما قرأت أنا قاعد مكان فيسبوك صورت سوقي كبار ليه صار يا فملي ذكر قرص الله
وروح أجو مكان تجوني ونعنع كلا هارسني ومكان صحة والله برخر وأكيد الميان يوم والله أنا ودنا ودك يجي هندرين كجوجا وأركاو سيدي كنا وشي ما يسوني لمحيو ورجوي هو تحيا ماشي والله ولا كلام والله ودنا واحد يفيد ورمية ودنا يرى المراي واحد من المجال يوم تبرد سوق لنا يدير على الإنسان تنصح الله يقول ورانا حسن يصوب على كل وقت اليوم براada bacma u xiraysaa shalay ugu dambeeyay 450 dhalinyaro Soomaali u badan kule aad inaad dadkaas u darto maarata aanu aqoonteeda leena soo baxo maarata wadakay goorma wax qaban aad soo taariyo warti masalaxa waa dadaniyo waxa caadi ah waa noloshiyo cusub bilaabo cusub nolosha براada wadan baan sugaya ma iska soo laabatid qurbo faa'iido malaana baasiya taa kule aniga soo tusho aywa anaga baan u xiraan dadkan qurbaha joogo wadankayga wax u baranaa intaan bixi lahay sidee yeelaa wadashay wadankayga daa wax u barto ana wax qabsan karaa miyaa darshay ana wadankayga arkaayo beereyga arkaayo masabuugayga ka tagaa wax la baran karaa intaan bixi lahay adaa wax barato wadankaaga wax u qaban kartaa wadankaas dhisaayo 20 sano qax iyo qaad ugu jiray Kenya ay ugu firnaad qaxooti email joogo bari laga bilaabo maalinta isku dhamay wadankayga oo laabana kala askari wadankayga u noqdo wadankayga wax u qaban karaa sidee wadanka kale ku furaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu ah Cali Cabdikariim Cusmaan hadaan ku bilaabo marka horeyso barnaamijkan tahriibka inaan ka hadlo oo wax ka raadiyo oo intaan oo dhalinyaro isku keeno oo warbaahintan u soo yeero oo intaan oo qoraal suubiyo habeen u soo jeedo run ahaantii waxa igu dhaliyay dhibaatooyinka maanta ay u leedahay tahriibka dhalinyaradeenna hatta dhalinyaro badan maanta ma ahana dhalaankeennii hooyooyinkeenii aabayaasheenii odayaasheenii iyo dhalinyaradeenaba intiinaba maadaama dhalinyarada ugu horumarinayo waxa waay dhalinyaradu laf dhabarta nolosha bulsho kastana laf dhabarteeda waxa dhalinyaro maanta ay waxa igu dhaliyay dhalinyaradeenii markaan arko oo waxyaabo xun la iga sheekeeyo inay dhimanayaan oo maanta dhimashadoodu ayna inna qiimo ka lahayn haddii 400 dhimato haddii 500 dhimato haddii 700 dhimato ay noqoto wax laga sheekeeyo kaliya iyo wax hal maalin dhacday adduunka ka dhacday ay alla ilaahay mararka qaar kood laga yaabo haddii 5 bahal ama 6 libaax oo wadamada dawladda leh ama 5 dhurwa ka dhimatay ayaaba ka qiimo badan mararka qaar kood gabdhaheeni maanta qayliga ahaan jiray oo maanta lagu haysto nin kasta iska qabo magaalo kasta lagu qabo hooyooyinkeena ilmaheena ka tagayaan maanta familiyadeena isnacayaan kuwa qurbaha hore waaday oo qaar kood 5 sano 6 sano sharci la'aan ku yihiin qaar kood meelo ku xiran yihiin qaar kood daraagis loo isticmaalay qaar kood waxyaabo aan hatta raggeeni iyo dumar ahaan loo isticmaalo adduunka maanta ay ka jirto maanta intaas oo walaha jirta waxaa jira maanta oo amaanta walaha lagu dhaliyay in ilmaheena la qaadanayo maalin kasta waxaan arnaa ilmaheena hooyooyinka laga qaadanayo oo cidna ka naxayn oo dawladda adduunka hadlaynin kuwa Mareykan jira kuwa waxaan aragnaa ummadeena 50 wadan noqotay tiradeena oo yalaanaysa tayadeena oo koreynin maanta waxaan aragnay in taliyaheena lagala baxay beerka lagala baxay meel kasta lagu qashay meel kasta ku dhintay qaar kood xabsiyada ku xirxiran 100 milyan maanta hooyada isku aynaysa aabaha weynaya oo ilmahoodii tahriibay oo ilmahoodii la qashay markaan arkay dhibaatooyinka inta leeg inama maadaama aan muwaadin Soomaaliyeed oo Soomaalinimada wadaninimada iyo Soomaalinimada dalkayga dadkayga diinteeda oo jeclahay waan u adkeysan waayay waan u dulqaadan waayay taas ayaa waxay ugu leedahay inaan ururin badan iyo sheekooyin badan suubiyo maanta halkan waxaan rabaa inaan ka sheego hal sheeko gaaban tahriibku inuu ahayn wax marnaba lagu faa'iido hadda ka hor ayaa waxa jiri jiray nin Carab ah marka ninka Carabta wuxuu lahaan jiray beerta ayaa waxa ku dhacday nin waxa uu imaada cadaan ah wuxuu dhahay niyo ma garanaysaa shayga adduunka ugu muhiimsan oo adiga ka maqan wuxuu dhahay maya wuxuu dhahay waa maxay shayga saaxiibow wuxuuna u sheegay inuu diamondka wuxuu dhahay hadaa diamond yar heshid waxa adduunka ka qaalisan ma la arko wuxuu dhahay diamondka intee laga helaa wuxuu dhahay meelaha wabiyada leh ninkii beerta weyn lahaa ee nolosha fiican ku jiray wuxuu suubiyay beertiisii gaday markuu beertiisii gadeena wuxuu dilaa inuu diamond raadiyo oo meel kasto adduunka wabi leh ku safro laakiin waxa dhacday ilaahay qadartiisa markuu waa bado wabi badan inuu dhintay maalin dambe uu safarkii ku dhintay maalmaha kamid ah ninkii niman cadaan oo meeshii degan beertiisa laga gaday ayaa waxa dhacday ninkii beertiisa ka gatay ayaa dhagax wuxuu ka dhaxlay beertii dhaldhalaalaya ragii ayuu soo muxuu dhahay warniyo dhaxan dhaldhalaalaya muxuu waaye waxa lagu dhahay diamond waaye markii beertii la qodayna waxa noqotay beertii waxay noqotay adduunka beerta ugu qoditaanka badan ee laga qodo diamondka ninkii lahaana tahriib ayuu ku dhintay wuxuu raadinayay diamond taas dhalinyarada Soomaaliyeed waxa uga jeedaa maanta waxa aan raadinayno dhan dhulkeena yaalaan lama huraan waa cawska jiidaal guri kasta nin kasta gurigiisu ku nool yahay
gaaladuna maxay dhahaan east and west home is the best meel laga dilnaxay ma jirto taas haddaan dhibaatadeeda ka hadlo waxaan rabaa kale inaan ka soo gaabno uga soo hadlo maxaa kalifay maxaa keenay waxaa kalifay maanta oo dhalinyarada Soomaalida markay qaarkood ma la yaabaysid markay qaarkood oo hiilinaysa hatta riibana leedahay ilaa maxaa yeelay wadankii waxaa ka jirta shaqo la'aan wadankii waxaa ka jirta qabyaalad wadankii waxaa ka jirta cadaalad darro wadankii waxaa ka jirta waxyaabo aan loo adkay jaahilnimo wadankii waxaa ka jirta dil iyo wax kasta la iska soo birnayo maanta looma adkeysan karo Soomaaliya waxa ka jira waxa arkaysa aniga oo Soomaaliya ayaan in la kulmay maalmaha kamid ah waxaan bartay engineer computer science engineer aan bartay waxaan dhahay walaalo wuxuu ka imaaday Muqdisho ka imaaday ayaan hadda ayaa booduu ka imaaday markaan dhahay walaalo Muqdisho engineerada IT-ga uga shaqeeyeen masal laga yaabaa inaan shaqo ka helo wuxuu dhahay maya lagama yaabo dhahay maxaa yeelay niman madow haysto meeshaas nimanka madowgaana shaqada gacantooda kama soo baxdo dhahay marka way adagtoo dhahay nin Soomaaliya si uu ka galo nimanka madowga oo ka qatarsan adiga oo ka fiican ayaa joogan marka ma heli kartid bulshada Soomaaliya marka aniga hadii saan leedahay maxaan dareemayaa hadaan wadankayga waxba ka heli karin shaqadii maanta hadaan tago ninka shaqo u tarno uma dhahay cilmiga leedahay wuxuu dhahay qabiilka tahay magaalada ka imaatay jufadee tahay maanta waxaa laga yaabaa nin ajnabiya oo jufal weydiin oo qabiil weydiin ayaa shaqadii Soomaaliyeed oo qaxootiga wax ku bartay oo Soomaaliya wax ku bartay oo Kenya wax ku bartay oo wadanka inay dib u soo nooleeyaan dad kale oo ajnabi ah iska haysta dawladeennii maalin kasta waxay suubinayso waan aragnaa dawladeennii maalin kama hadlayso dawladeennii maalin kasta ku qoslaysaa waxaan leenahay shanta sano soo socota bedeli doonto 5 sano soo socota ka bedela tan waxaan rabaa mid kale inaan uga diro baaq odayaasha Soomaalida ee maalin kasta gacanta ku haysta inay soo xushaan xildhibaanada kuna soo xildhibaanada ay soo xulanayaan ku soo xushaan qabiil iyo jifo ee marnaba aan ku soo xilin yaa wax qabanaya yaa aqoon leh yaa wax suunaya xildhibaanada markii la soo xusho xaq darro lagu soo xusho ayaguna madaxweynaha xaq darro ku soo xushaan taas waa dhibaatooyinka ugu weyn oo keenta maantayto intuu dhalinyaradu taariikhdu waxa kamid ah jaahilnimadii kamid ah cilmi ma lahan dadkii way iska dil dagaal waxa jirta markay 10 nin galaas galeen wax aqrisanayeen nin baa wuxuu suubinaya kaligiis waxa ma barto baadiyo jooga maalinta kale qor intuu qato wuxuu leeyahay hebel suu iga fiican yahay aniga hebel suu xafiiska soo fadhiya aniga ma fadhiya asagoo reer qabiil hebel ah oo jufeer ka soo baxo laangaaba war laangaa ma jiray maanta Soomaaliyeey kulligeen isku laanbaan laandheer iyo laangaa ma jiro maanta waxaan rabaa aniga aan ku dadaalayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dadkana ku codsanayaa inaan wada istaagno oo u wada hergino sidee xurnimo dhab oo anagu aan leenahay Soomaalinimo dawladda aan leenahay ku dhisana oo cidna noo dhisay maanta dawladeena dad shisheeyaa dhisaane waxaan ku raadsanaa sidee baan anagu qabiil raadsan qof wanaagsan oo hogaamiye ku dooranayna sidee baan ku haysanayna wax anaga aan leenahay sidee baan cilmi ku haysanayna sidee ciidamadeena ku dhisanayna oo dib ciidankeena wadankeena ugu soo ceshanayna sidee baan tahriibkan ku yeelanayna shaqo abuur ku dhisanayna sidee baan xafiis kasta oo dawladeena leedahay cadaalad ugu soorayna oo aan u dhahnaa waaye qabiilka tahay kalarka tahay iyo tuulada ka imaatay magaalada ka imaatay sidee baan maanta aan waxaan arkaynaa maanta gabadha waxa la kas doonanaysa waxa imaanay nid dibadda ka imaada imaanay maanta wuxuu leeyahay baasaboor wata lacag yar oo cayr uu ku soo aruursado wata waxa laga yaabaa inuu engineer yahay ninka laakiin Afrika iyo Kenya uu ku soo koray meelahan Afrika u joogay laakiin uu aqoon dhifaasan leeyahay cilmigiisana uu ku shaqeysta xafiisin u fureen laakiin waxa leeyahay war waxa aad lagu dhaaniyo gabadha Yurub ka imaatay ninka Yurub ka imaatay naagta Yurub ka imaatay ninka Mareykanka ka imaada la rabaa ما أنت Soomaaliyeey maasha u ordaysan cidneenka ma jirto kuwa in kaga horeeya 50,000 xabsida Mareykanka waxa ku xiran Soomaaliya ugu badan xabsida Yurub waxa ku xiran Soomaaliya ugu badan qisooyin kasta oo in la maalin kasta dhageystaa kuwa iimaada iga sheekayaan maalin kasta waxba ma jiraan Yurub iyo Mareykan run ahaantii waa aabaha ii sheekay oo 7 sano xiran oo loo xiray gabadhiisa condom waxa gabadhaad ugu geedooda lagu xiraa aniga sheekadiisa dhageystay maxaa sheekadooda haya intaas iyo ka daran maxaa haya maanta ito nimankii la qaniisan haya maxaa runta inay sheegayna wax la kala qeylay ma jirto dibadna waxba ma yaalaan walaalayaal معانو دينتي وكو يراتا ظلمي أما أنا أو wax kale ma jiraan maanta waxa iga maraysaa inaan dhaho dadkaygii maxaa dhacay damiir la'aan maxaa dhigay dawladooda ay rugayaan dulmi bay shidayaan dab bay shidayaan dagaal bay wadaan duufaanaha iyo dabaanada ku dilaysa dabada isku daadinayaan maanta halkaas waxba nooma tarayso walaalayaalow waxaan rabaa si wada jir leh nidaamsan inaan isku wada qabsano tahriibka ka hortagno qabyaalada ka hortagno jaahilanimada ka hortagno dawlad xumada ka hortagno dawladaha dariska nagu ah oo nagu soo duulay dadka adduunka nagu soo duulay kulligood inaan iska wada celino maanta waxaan suubinay oo ku soo dadaalnay muddo dhowr isbuuc ah barnaamij ka hadlaya jooji tahriibka la dhaho jooji tahriibka oo wacyigelina waxaana barnaamijkaas iska lahaa oo aruurinayay oo ka soo maaxatay fikradaas iyo erayadaas dhamaantood aniga iska lahaa alxamdulillaah rabbil caalamiin dad badan ay kala shaqeeyay dhamaan dadkii kuwii dhiirigeliyay kuwii sawirada igu imaaday kuwii ila socday kuwii qoraalka ila qoray kuwii warqadaha ii soo print gareeyay kuwii ii dhahay waa wax fiican baad suubinaysaa hore ugu dhaqaaq kulligood aad baan ugu mahadcelinayaa waxa kale oo si muhiim ah oo laf dhabar leh aan 100 jeer ugu mahadcelinayaa hada
warbaahinta tusmo oo ay horyaal u ahaayeen Mr. Bashi iyo Mr. Cabdi Samad khayr Allah siiyo waqti muhiim ay la qaateen labadooda oo mahad celinaya inta muuqaan daawanaysana waxaan ka codsan doonaa kulligood inay Facebook-na share ku dhahan Twitter-kana ay tweet gareeyaan